ciidamada dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Tirhawn ee ku taala koonfurta bari ee magaalada caasimadda ah ee Tripoli taasi oo Janaal Khalifa Haftar ka saaraysa halkii ugu xooganeyd ee ugu dambeysay ee uu kaga sugnaa galbeedka Liibiya. Tirhawn waxay ahayd magaalada uu Khalifa Haftar ka soo qaadayay weeraradii socday 14 bilood ee ugu dambeeyay kuwaasi oo doonayay inuu ku qabsado Tripoli. weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Khalifa Haftar iyo ciidankiisa oo ku aadan ka bixitaankooda magaaladaasi taasi oo timid maalin kadib markii laga riixay goobihii ugu dambeeyay ay kaga sugnaayeen caasimadda. ciidamada dawladda ayaa sidoo kale Arbacadii dib u qabsaday garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Tripoli taasi oo ka dhigaysa in ciidamada Haftar ay gebi ahaanba isaga baxeen caasimadda. dagaalka Liibiya ayaan weli fari ka qodnayn maadaama ciidamada Khalifa Haftar ay maamulaan bariga dalkaasi oo ay ka dhiseen dawlad kale iyo koonfurta dalka oo ah halka ay ku yaalaan goobaha saliidda laga soo saaro. Haftar ayaa bishii Abriil 2019 bilaabay weerar uu doonayo inuu ku qabsado caasimadda Liibiya hase yeeshee waxaa bilihii dhawaa hakiyay faragelin ay Turkiga ku sameeyeen dalkaasi iyaga oo taageeraya ciidamada dawladda. Khalifa Haftar ayaa waxaa taageera Masar, Imaaraadka Carabta iyo Ruushka halka dawladda ay gacan ka helayso Turkiga iyo Qatar.